تخرفي يا دار خلد إنه ما كان يوما عن جهاد جاثيا واستبشري يا حور عين وهتفي وقصر في جانب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa darsigeenu wuxuu ka bilaabanaa aayadda 42 ee min suurati albaqara qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaa talbisuu yuhuuday ha ku qasinina alxaqa xaqi ha ku qasinina bilbaaili baatil ha ku qasinina oo xaq iyo baatil ha isku qasinina oo ha isku darinina وتكتموا الحق ولا تكتموا الحق واليهود حقين قرننا والحال قرننا أنتم أذنكو تعلمون أن محمدا حق النبي محمد إنه حق ياهي مداس قرننا وأقيموا الصلاة صلاة أوغا وآتوا الزكاة نصية بحية واركعوا أي وصلوا تكذا مع الراكعين مع المصلين تتك تكذا إلى تكذا ilaahay labadan aayad wuxuu yuhuudda kaga reebaya xadgudubkoodii oo ah min talbiisi alxaqi bilbaatil yani xaqii baatilna isku qasaan isla markaasna xaqii dadka ka qariyaan oo maxay nabi maxamed inuu xaq yahay kitaabkoodii aa lagu sheegay kitaabadoodii way qarinayaan markaasi xaq iyo baatil isku daray waxay leeyihiin waxyaaba qaar way sheegayaan sax waa salaadii soonkii sax waayay leeyihiin nebigan way inkirayaan way diidayaan marka xaq iyo baatil ha isku qasinina walaa talbisu lxaqa xaqii ha ku qasinina yuhuude bilbaatil baatilki xaqii baatil ha isku darinina wataktumu lxaqa walaa taktumu lxaqa xaqiina ha qarinina walxaal ha qarinina antum idinkoo taclamuuna og ana hada huwa alxaq waxaan inuu xaq yahay nabi maxamed inuu xaq yahay idinkoo og war ha qarinina waaqiimu salaata salaada oogo toosiya arkaanteedii iyo shuruuddeedii toosiya o ilaaliya waaatu zakadana siiya dadka loogu talagalay waa 8 sinfi ama 8 nooc suurat lbaqara lagu sheegay inama sadaqaatu lilfuqaraai aayadaasaa lagu sheegay 8daas qolo haddii wax inta ka joogto yani ka siiya inta qolo laga helo bal siiya warkacuu ay wasalluu tukadaa loola jeeday waxaa la yidhahda xagga balaaqada yani waxaa la yidhahda dikru lbacdi wa iraadat lkulli yani in qeyb la sheego iyadoo loola jeedo dhammaan yani hadda waxaa la sheegay qeyba rukuucda la sheegay rukuucda waa salaada qeyb ka mid ah waa rugni salaada ka mid ah markaas waxaana loola jeedaa salaadii oo dhammaana loola jeeda marka waxay dhahaysa warkacuu tukada maca raakiciin maca almusaliin dadka tukada la jirkooda la tukada halkaas culummada yani waxay ka qaateen salaada waajib way dhahay jamaacada in lagu tukado aayadana ka qaateen waxay leeyihin salaada jamaacada in lagu tukada ragga waajib ay ku tahay laakiin dumarka waajib kuma aynay leeyihin aayadani dariishadeen ilahi wuxuu yiri subxaanahu watacaala ta'muruuna annaasa dadka wanaag miyaad faraysaan yuhuudey ta'muruuna annaasa dadka ma waxaad faraysaan dheh bilbiri wanaag miyaad faraysaan watansawna ma ka tegaysaan anfusakum nafyaalkiin walxaal miyaad ka tegaysaan antum adikoo taclamuuna tatluuna aqrinaya dheh alkitaaba kitaabkii towraad afalaa tacqiluuna muwaadnan caqli lahayn aayadan yuhuud ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay wuxuu ku inkiraa yani dadka wanaagay farayan salaada la bixi sadaqa la bixi wax wanaagay sheegayaan maca dalik iyaga ma sameynayan islaamnimadii ma qaadanayan nabigii ma rumaynayan markaas waxay leeyihin maalinta sagaalaad nabi muuse la badbaadiyey waa soomeynaa ay leeyihin bisha muxaramkeed taasuca marka ta'muruuna annaasa dadka ma waxaad faraysaan bilbiri wanaag iyo khayr watansoona anfusakum adinka nafyaalkiina ma ka tegaysaan walxaal miyaad ka tegaysaan antum adikoo tatluuna alkitaaba yuhuuday kitaabkii towraad akrinay afalaa tacqiluuna muwaydan caqli layn madoqmaadtiin waad ogtiin nabi shucayb inuu yiri wamaa uriidu an uqaalifakum ilaa maa anhaakum canhu aniga ma rabo yani inaan idin dabamaray waxaan idinka reebayo inaan aniga idin dabamareeyo ma rabo marka aniga wanaagaan rabaa mar qofka waxaa la rabaa wuxuu sheegaayo inuu isaga sameeyo wuxuu dadka ka reebayan inuu isaga ka haro marka hore ayib ilahi wuxuu yiri jala jalaaluhu wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabrka kaalmaysta wasalaati salaada kaalmaysta maxaa yeele markaa dacwo aad gudanaysid dadka wanaag aad sheegaysa waa lagu dicaayadana waa waalanyaa lagu leey sixiroola waayo saaxir waayo majnuun nabigaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam fahmaysaa marka adiga marka waxaas lagu geystay dhibaatada ku sabar fahmaysaa wa inahaa salaada lakabiiratu ay lathaqiilatu waa mid culus
ilaa cala alqaashiciina dadka khushuucsan maanaysan ku cuslayn salaadda way culus tahay fahmaysaa waxay rabtaa sabar waxaa salaad subax inaad soo kacdo iyadoo qabow jirto busta aad iska feedo aad soo istaagto quwaysato aad cadaysato 2 ragca aad tukato markaas kadib haddana salaadii subax aad aado ama waxa waaye arrin culus waaye nafsada badanaa ma awoodo jiifa iska jecesha iyo raaxo inay fahmaysaa markan qofka salaada tukanaya xilligaas qabowka ah sabar ay u baahanta marka nafsadaada yacni salaada ku sabar cibaadaadka ku sabar dhibka kusoo gaaran ku sabro wa inaa salaadu lakabiiratun waa mid culus ay la thaqiilatun ilaa cala alqaashiciina dadka khushuuciyahu kuma cuslo haddii la dheeray haddii la gaabiyabo way ku khushuucayaan aladiina qaashiciintii ayaysan ku cuslayn yadunuuna yaqiinsan annahum iyagu mulaaqu rabbihim rabbigood kuwii la kulmaaya inay yihiin yaqiinsan iyo annahum iyagu raajicuuna kuwa noqonaya inay yihiin yaqiinsan ilayhi ila allah marka salaadda waxaysan ku cuslayn aladiina waa kuwa qaashiciinta iyo ku cuslayn yadunuuna yaqiinsan dhannigan waxaa loola jeedaa maanta yaqiin ilan carabta waxay tiraahdaa sida ibnu jariir dabari tafsiirkiisa uu ku sheegay raximahullah alcarabu qad tusama alyaqiin dhannan carab waxaa laga yaabaa dhanniga inay yaqiin ku magacaawdo sida meeshaan oo kale marka waxaa leedahay marka dhanniga yaqiina loola jeedaa yani yadunuuna yaqiinsan annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigooda kule kulmaayo inay yihiin yaqiinsan kuwaas kuma cusla iyo annahum iyagu raajicuuna kuwii noqonaya inay yihiin ilallahi ilaahay xaggiisii kuwa u noqonaya inay yihiin kuwa yaqiinsan kuwa salaada kuma cuslo waa laakiin munaafiqiinta ku culusta ilahi wuxuu yidhi yaa bani israa'iila reer bani israa'iil israa'iil waa nebi yacquub magaciisa marka waxaa dhahaysaa yaa bani israa'iila nebi yacquub caruurtiisiiow udkuruu xusuusta nicmatii aniga nicmadeyda xusuusta allatii nicmadii xusuusta ancamtu calaykum aan dushiin idinkugu nicmeeyey iyo anii aniga fadaltukum inaan idinka fadilay cala alcaalamiina calaa caalimi zamaanikum zamankiina dadkii noolaa inaan idinka fadilo xusuusta wa anii aniga fadaltukum inaan idinka fadil oo idinka saramarsiiyey cala alcaalamiin waxaa loola jeeda ay yirahdan culummada calaa caalimi zamaanihim zamankooda waqtigii noolaa ilahi waa ka fadil zamankooda fircoon iyo dadkii noolaa dhan ilahi iyagoo ka doortay yuhuudoo ka doortay nabi muuse uu soo diray iyagoo doortay muslimiinay ahaayeen waqtigoodii laakiin ummad waxa ugu fadli ummaddii nabi maxamed ugu fadli badan iyaga hadday muslim ahaan lahaayeen iyaga fadliyay lahaan lahaayeen ajirkii hore towraadna way lahaan lahaayeen nabi muuse ay rumeeyeen kii nabi maxamed ay rumeeyeen 2 ajray lahaan lahaayeen marka waxaa laga yaaba xitaa annaga inay naga fadli bataan laakiin maadaama hadda ay gaalo ay yihiin khayr malah waa kuwa dulli waay dadkan iyagaa ugu liito waay ilaahayna markaasuu daanyeer iyo doonfaaroo ka dhigay qaarkood ilahi wuxuu yidhi wataquu ka baqa oo iska ilaaliya reer bani israa'iil iyo addoommada ilaahay dhammaantiin iska ilaaliya yowman maalin ciqaabkiisa iska ilaaliya maalinkoo laa tajzi aysan gudayn yani aysan ka difaaci karin nafsu nafi can nafsin naf kale aysan ka difaaci karin shay-an waxba ilahi wuxuu leeyahay iska ilaaliya maalin waa maalinka qiyaamaha naf kale aysan difaaci karin shay-an waxba aysan ka difaaci karin ilahi wuxuu yidhi walaa yuqbalu horta midda koowaad adduunka marka la joogo dadka way isdifaacaan qofka hadii lasoo weeraro aakhir laakiin ilahay ciqaabkiisa ma iska difaaci kartaan wataquu iska ilaaliya yowman maalin ciqaab iska ilaaliya laa tajzi aysan ka difaaci karin nafsu naf can nafsi naf kale shay waxba aysan ka difaaci karin waa qodob kale walaa yuqbalu laga aqbali maayo minhaa nafsada xaggeedi shafaacatun ergo adduunka marka la joogo qofka haddii yani isdifaaci waaye akhyaaroo soo dirsa wuxuu leeyahay ninkan aad xerateen ninkan waxaa anaga akhyaarka ah anagaa erga ka anagaa naqaano anagaa damiinka ah iska sii daaya akhyaartiisiana aakhir laga akhyaar ma jirto iyo wax kuu shafeecayo nabiyaalku way shafiican calayhi salaam laakiin qofkii ilaahay u fasax bisa u shafiican qof kale mu shafiici karaan qodobka saddexaad walaa yuukhadu laga qaadan maayo minhaa nafsadii xaggeedii minhaa nafsadii gaasha ayd ama dembiga wadatay laga qaadan maayo cadlun wax madax furasha cadlun ay fidyatun madax furasha laga qaadama aakhiro adduunka laakiin madax furasha haddii qofka lagu soo dayn waayo xabsi uu ku waaro waxaa leedahay niyo intaasoo $1,000 iga qaado ninkan isii daaya iska cafiyaa leeda lacagtaas qaado ninkaas ii soo daaya aakhir laakiin madax furash ilahay kaa qaadin maa qodobka afraad ugu dambeeyo walaahum nafiyaalkii ma ahan aakhiro nafiyaalkii xumaa walaahum nafiyaalkii xumaa ma ahan yunsarun kuwii loo gargaara naftii xumeed oo gaasha ahayd yani loo gargaari maayo famaa tanfacum shafaacatu shaaficiin dadka shafaacadoodii waxumuu tarayso marka sidaas waayo maalinkaas gaalada 4taas qodob oo adduunka laisugu gargaaro aakhiro 4taas qodob waxay ka taraysa malahan sidaasuu ilaahi jala jalaaluhu oo noo sheegay qaala tacala ilahi wuxuu yidhi waid najaynaakum wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waqti xusuusta najaynaakum aan idinka badbaadinay min aali fircawn iyo ehelkiisa aan idinka badbaadinay yasuumunakum xaalay idin dhadhansiinayeen aan idinka badbaadinay suua alcadaabi cadaabkiisa xunna idin dhadhansiinayni
ay idin dhadhansiinayeen yudabixuuna xaal ay idin gowracayeen aan idin badbaadinay abnaa'akum wiilashiina ay gowracayeen wayastaxyuuna ayna ka tegayeen nisaa'akum dumarkiina ay ka tegayeen wa fii daalikum arrinkaas lasoo sheego ah wa fii daalikum alinjaa badbaadintaas aan reer bani israa'iil yani fircoon aan idinka badbaadinay balaa-un ay nicmatu nicmaha ku sugan nicmadaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka aatay nicmadaasoo balaa-un nicmadaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka aatay nicmadaasoo cadiimin weyn marka ilaahay wuxuu leeyahay reer bani israa'iil wadkuruu xusuusta reer bani israa'iil id waqti xusuusta najaynaakum aan idinka korinay yani aan idinka badbaadinay min aali fircoona fircoon iyo ehelkiisii yasuumuunakum xaaladay idin dhadhansiinayeen suu-al cadaabi cadaabkiisu xun cadaabkii xumaa maxay tahay ragga way gowracayeen wixii wiil hadduu dhasho waa la gowracay ilaa marka dambe ay yidhaahdeen sanadkan wiilashi way dhammaadeen oo reer yuhuudda wax masquuliin oo qodaya ma lahan wax noo shaqaynayo la adoonsanaya ma lahan saa darteed fircoonow sanadna wiilasha reer bani israa'iil gowrac sanadna dhaaf nabi muuse wuxuu dhashay marka nabi haruun wuxuu dhashay sanadkii wiilasha layska dhaafayay nabi muusena wuxuu dhashay sanadkii wiilasha loo gowracay markaasi hooyadiisii sanduuqii kuridda badday ku tuurtay iyadoo faahfaahsan suuratu daaha iyo suuradaha kale inoogu imaan doona insha allah marka cadaabkaas xun oo aan idinka badbaadin yasuumunakum xaaladda idin dhadhansiinayeen suu-al cadaabi cadaabkii kiisii xumaa markay idin dhadhansiinaya xaaladaasa idinka badbaadin marka xusuusta ilaahay ka baq diinta raacoo nabi maxamed rumeeye yahuud haddaad tihiin yudabixuuna xaal ay idin gowracayeen xaal ay gowracayeen dheh abnaa'akum wiilashiina xaaladday gowracayeenna maxaa la dhihi jiray waan idinka badbaadin waa idin addoomi musqulaha laydinku qodan jiray guryaha laydinku dhisan jiray waan laydin gowrici jire waa idinka badbaadin wayastaxyuuna wayna ka tegi jireen nisaa'akum yani dumarkiina way ka tegayeen dumarka way dhaafayeen gurigaa lagu xeraayey si fircooniya loo gudaayey waa la bahdili jiray wa fii daalikum laba meelaa lagu ishaara loo celiyaa in loo celiyo masdarkii oo najay ah fahmaysa wa fii daalikum injaa yani badbaadintaas aan idin badbaadinay fircoon aan idinka badbaadinay balaa-un ay nicmatun nicmaha ku sugan macno labaad waa jiraa daalikum in lagu ishaaro cadaabka markaas waxaa noqone wa fii daalikum cadaabkaas oo maxaa tahay min dabxi abnaa waistixyaai nisaa yani cadaabkaasu ah in laydin gowraco gabdhihiina laga tago balaa-un ay imtixaana ku sugan marka daalikum haddii cadaabka aad ku ishaarto u celiso balaa-un waxaa ku fasire imtixaan aa ku sugan haddii daalikum aad ku ishaarto yani badbaadintana balaa-un nicmaa ku fasira marka fii daalikum yani badbaadintaas waxaa ku sugan balaa-un nicmaa ku sugan iyo barwaaqo ama waxaa dhe wa fii daalikum cadaabkaas laydin cadaabay waxaa ku sugnaa balaa-un imtixaana ku sugnaa imtixaankaaso min rabbig xagga rabbigiini ka ahaaday imtixaankaasoo cadiimin weynin badan wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed